kulanti waxaan saaxiibayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa kulamadii maanta la ciyaaray. Manchester City sanadkan waa laga diiday in markeeda afraad ay ku guuleysto. Liverpool oo ciriir la geliyay guushii Chelsea iyo waxaan eegi doonaa kulamadii kale ee la ciyaaray. Haddii ay tahay markii ugu horreysay soo booqato fadlan rukumo kambalelkana furo saad ugu mid noqo dadka ugu horeeya ee warbixinteeda ay soo gaadho. Mar labaad soo dhawaad saaxiibayaal haddii ku bilowno kulamo waaweyn ayaa maanta jiray. runtii Manchester City iyo Tottenham kulankii weynaa maanta la ciyaarayay barbaro ayuu kusoo dhamaaday. waxa uu ahaa kulan radii lafaha la iska garaacay oo labada kooxood ay ficiltameen. runtii Tottenham iyo Manchester marka la eego Tottenham kooxda Man City waa ka adagtayba. waxaan moodaa sanadkan in Manchester City si kale loo eeganayo in markeedii afraad oo xiriir horyaalka Premier League ay ku guuleysto. runtii waa laga diidan yahay. waa kooxda saddexaad weyn ee la barbaraysa. inkastoo Arsenal iyadu ay 3 dhibcood ay ka qaadatay. Manchester City iyo Tottenham waa barbareeyeen. Pep waa yaaban yahay sanadkan. runtii daqiiqadii 6aad ayaa gool lagu bilaabay Manchester City oo Son ka dhaliyay. inkastoo Son 3 daqiiqo kadib uu isagoo hadana iska soo dhaliyay haddana 2 jeer oo hogaanka ay la wareegtay Man City waa laga keenay. runtii Manchester City sanadkan waa la dhibayaa. waxay u muuqataa sanadkan in fursad ay jirto amba Arsenal amba Liverpool mid inay horyaalkan ay kor qaadi doonto. labada kooxood ee la tartami kara ilaa hadda aan ku adkeynaya. Tottenhamna waa soo noqotay. runtii waa taasi maanta Manchester City inay garaacada ay ku dhawaatayba. runtii kulanka kubadda waa la qaybsanayay inkastoo labada dhinacba weerarkooda ay labadooduba runtii ay halis hayeen. haddana kulankii ugu dambeyn barbaro ayuu kusoo gabagaboona kulan weyn ayuu ahaa. Manchester City-na kaalinta saddexaad ay sidaasi ugu dhaadhacday. Liverpool runtii galabteedana ciriiri ayaa la geliyay. waxaabay ku seegatay galabta in Liverpool laga badiyo. Liverpool kooxda horta daqiiqadii 80aad ay baxsatay waana waxyaabo lagu qorto kooxda horyaalka qaadaysa. Arsenal iyo Liverpool waa kooxaha fursad u haysta sanadkani. runtii Leno goolashii dhaliyeen ayaa runtii wax loo dhigaba aan lahaynba. ha noqoto goolkii koobaad Alexander-Arnold free kick u dhaliyay. runtii Arnold 3 kulan 2 kulan ugu dambeeyay 3 gool ayuu saas ku maraya. free kick goolkii Mark Allister u dhaliyay wax loo dhiga ma laha. ha sheeginkii intuu u dhaliyay Alexander-Arnold ayaa runtii 2 minute oo isku xiga ayuu hogaanka kula barbareeyeen kuna badiyeen. runtii Fulham waxaa ku dhacay inkastoo Liverpoolna inta 2 gool laga keenay hogaanka daqiiqadii 8 laga wareegay. runtii kulamada maanta daawashay lahaayeen xaqiiqatan kulamada gool badan la iska dhalinaya. runtii waa kulamo wax loo dhigaa lahayn. kulan weyn ayuu kulankeena hayo garoonkaasi lafaha la iska garaacay oo labadan kooxood kulan weyn ay ciyaareen. runtii goolal aan inaba caadi ahayn la iska dhaliyay. Chelsea ayaaduna runtii badisay. Chelsea lafteedu waa soo dhawaato 9 ay yeelatay. kaliya 14 dhibcood baa laga hayaa hogaanka iyadoo intaas kulan laga badiyay. maanta waa badisay Enzo Fernandez iyo waliba Colwill. Enzo Fernandez oo 2 gool u dhaliyay kooxda galabta oo la baxsaday. inkastoo kooxdani ba ay dhibtay Brighton oo 2 gool ay ka dhalisay oo xitaa Gallagher oo daqiiqadii 45aad oo casaan ay qabeen kooxdani Chelsea. haddana maanta waa badiyeen. daqiiqadii 65aad ayuu Enzo Fernandez record u dhigay 3-2 ay Chelsea ay ku badisay. kulamadan maanta la ciyaaray wax badan ayuu ka bedelay kala sareynta horyaalka. Arsenal ayaa wali horyaalka Premier League si hayso 3 dhibcood leh. Liverpool oo 2 dhibcood laga sareeyo kaalinta labaad ku jirta. Man City kaalinta saddexaad ayaa loo dhaadhiciyay. Tottenham 5aad bay keentay. runtii Brighton iyadoo 22aad iyadoo laga badiyay. Chelsea waa soo dhawaato 10aad ay maraysa 19 dhibcood ay leedahay. waa kulan kale ay badiso. runtii wali horyaalku waa bilow. waxaa jiray kulan kale weyn oo Borussia Dortmund iyo Bayer Leverkusen u dhaxeeyay. kulankaasina barbaro 1-1 ayuu kusoo gabagaboobay. wali tababara Xavi Alonso oo ku wacdareynaya hogaankiina wali isaga haysta. inkastoo hadii kulanka soo socda ee Bayer ay ciyaarayso ay badiso hogaanka laga wareegi karo. oo runtii 2 dhibcood bay leedahay Bayer Leverkusen 35. haddii ay badiso 35 bay la yeelan doontaa.
5 hala yeelatee farqiga goolasha ayaa runtii laga hayn doonaa hoggaanka horyaalka, laakiin weli 13 kulan ayuu ciyaaray runtii 11 ka midna waa badiyay, 2na waa barbariyay Tobrahni. weli wax guul daraa lama kulmin, wax lasaba lama kulmin. Bayer Leverkusen lama kulmin xilli ciyaareedkani, waana sababta keentay Victor uu sareeya xataa al'aan ay ku loolanto. Kulankii maanta ee Liverpool ciyaarsi waxa runtii dhaawac uu kasoo gaaray daafaceeda maatin kastoo weli aan la xaqiijin dhaawacaas, weli aanay dhakhaatiirta aanay shaacin dhaawac soo gaaray inuu la mid noqon doono dhaawac ciyaartoydii hore ee kooxdani ka maqnaa. ciyaartoy fara badan Liverpool ka maqnaa, Robertson, Alisson, kulankan ciyaaray Diogo Jota, Thiago Alcantara, Pachetic, xidigahaas oo dhan ayaa ka maqnaa runtii. waxaa lagu soo waramayaa idina kooxda Arsenal inay isku diyaarinayso inay iska iibiso Thomas Partey bisha Janaayo si ay lacag ay ugu hesho suuqa kala iibsiga ee January, si ay xidig ay soo qaadato safkeeda ay ugu xoojiso. runtii waxay damacsan tahay in laacibkeedaasi Thomas Partey kooxdan ay ka takhalusto, runtii ay iska iibiso suuqaasi ay isku diyaariso. ciyaartoy fara badan runtii la xiriirinayana ay doonaysaa kooxdan Arsenal inay soo qaadato. runtigeeda waxay damacsan tahay in horyaalka hoggaanka aanay dib aanay looga qaadin oo suuqa Janaayo ay soo adkayso si sanadkii dhawaa oo farcigood ka baxsaday horyaalku sanadkani ay u qaado oo ay ku maasto ay ku raaxaysto. inkastoo iyadana aan meesha laga saari karin Liverpool oo sanadkan tartanka horyaalada aan ku jirin Championka Europa League oo doonaysa iyaduna in horyaalka ay qaado, inkastoo cadaadis kale aanay jirin. horyaalkan ay kooxda Liverpool doonaysa inay ku majato. runtii sanadkan horyaalku daawasho leeyahay oo lagu tartamayaa. Manchester City waxay muuqataa sanadkan inaanay sanadkii hore la mid ahayn. runtii xiliyadan ayaabay sii kufkufsa baraajeeda badanaya oo taasi labadaasi kooxood ayaana ka horeeya. runtii horyaalku weli waa bilow. warkiina ciyaar wanaagsan saaxiibayaal inta kulmi doona warkiina kale. wassalaamu calaykum.